Sarro Braille ama inugu yeerno magaciisa dhalashada oo ah Sheeru Munshiqaan waxa wiilkan ku dhashay duleedka magaalada Qandaba ee gobolka Madhya Pradesh. Markii wiilkan yara aabiis waxa uu furay hooyadiis, reerkiina waxa soo wajahday xaalad adag. Hooyadii waxay bilowday inay ka shaqeyso goobaha dhagaxaanta lagu qodo ama lagu jabiyo si ay u masruufto nafteeda iyo carruurteedaba. Laakiin badanaa hooyada shaqadan ma aysan ka heli jirin lacag ku filan oo ay ku qudiso dhammaan carruurteeda, mana awoodin inay iskuul u dirto si ay wax bartaan. Sarru markii uu 5 sano jiray isaga iyo walaalihiis ka waaweyn oo lagu kala magacaabi jiray Guddu iyo Kallu ayay bilaabeen inay ka shaqeeyaan meelaha tareenka laga raaco si ay cunto iyo lacag uga helaan. Guddu mararka qaar wuxuu lacag ka heli jiray xaaqada sagxadda tareenka. Habeen ka mid ah habeenada ayuu Guddu wuxuu sheegay inuu aadayo magaalada Burhanpur oo 70 kiiloomitir u jirta magaaladii ay ku noolaayeen. Sarru wuxuu walaalkiis ka weyn ka codsaday inuu raaco. Guddu ma uusan rabin inuu walaalkiis ka wado. Ugu dambeyn bari dheer kadib Guddu waa uu ogolaaday inuu walaalkiis ka raaco. Markii uu tareenku gaaray magaalada Burhanpur ayaa Sarru oo aad u daalan iska hurday mid ka mid ah kuraasta boosteejada. Intaas kadib Guddu wuxuu sheegay inuu walaalkiis ka iska sii hurto, wuxuuna ballan qaaday inuu ku soo noqon doono daqiiqado yar gudaheed. Guddu ma uusan soo noqon. Aakhirkiina Sarru waa uu sug waayay walaalkiis, wuxuuna arkay tareen taagan boosteejada, wuxuuna u maleynayay in walaalkiis uu saaran yahay. Markii uu dhex galanay tareenku waxa uu ahaa mid faaruq ah oo aan cidna saarnayn. Sarru wuxuu rajeynayay in walaalkiis weyn soo laaban doono, wuxuuna is yiri iska sii dhex hurud tareenka ilaa uu walaalkaada ka imaanayo. Intii uu hurdayna tareenku waa uu dhaqaaqay. Markii uu soo toosayna tareenku waxa uu marayay meel uusan aqoonin. Mararka qaar tareenku waxa uu istaagayay boostooyin yaryar, laakiin cidna ma uusan qaadinin tareenka. Sarru wuxuu isku dayay inuu albaabka ka baxo, laakiin ma awoodin inuu furo albaabka si uu uga baxsado. Safarkii tareenka ee Sarru wuxuu aakhirkii ku soo dhamaaday boosteejada tareenka ee magaalada Kolkata. Markii la furayna albaabka tareenka si ay dadku u soo raacaan, ayuu Sarruna ka soo baxsaday oo uu ka soo degay tareenka. Sarru ma uusan ogeyn xilliga meesha uu joogay, laakiin qiyaas ahaan waxay magaaladiis u jirtay ilaa 1500 kiiloomitir. Isla habeenkaas Guddu intuu raadinayay walaalkiis sar ee Sarru ayaa waxa uu Guddu jiray tareen waa uuna dhintay, laakiin Sarru ma uusan ogeyn arrintan. Sarru wuxuu isku dayay inuu guriga ku laabto, laakiin uma suurtagelin inuu soo laabto. Ku dhawaad 7 ama 2 toddobaad wuxuu ku noolaa boosteejooyinka tareenada laga raaco. Labadaas toddobaad Sarru wuxuu cunayay cuntooyinka la soo tuuray isagoona hurdi jiray wadooyinka. Kadib maalmo hooylaan iyo walaal la'aan ah ayuu Sarru ku dhiiraday inuu gudaha u galo magaalada oo uu ka soo tago boosteejooyinka tareenada. Waxaana Sarru arkay oo soo waday haweeney, waxayna siisay cunto iyo hoy. Maalintii xigtay Sarru waa uu ka shaqeeyay haweeneydan, waxayna doonaysay inuu ku wareejiso niman iibiyo carruurta lumay iyo kuwa la soo xaday. Sarru waa uu ka cararay haweeneydii. Aakhirkiina waxa uu la kulmay wiil dhalinyaro ah oo u kaxeeyay saldhig booliis ah, wuxuuna ku wargeliyay saldhiga inuu wiilkan soo lumay. Booliiskuna waxay Sarru geeyeen xarun dawladeed oo loogu talagalay carruurta soo lumtay iyo kuwooda agoonka ahba. Toddobaadyo kadibna shaqaalaha goobtaas joogay waxay isku dayeen inay raadiyaan qoyskiisa, laakiin Sarru ma uusan aqoonin xitaa magaaladii uu ka yimid. Shaqaalihiina waxay ehelkiisa ka dhex raadinayeen magaalada Kolkata. Ugu dambeyn Sarru waxaa si rasmi ah loogu aqoonsaday inuu yahay cunug soo lumay, waxaana markii dambe lagu wareejiyay qoys degan magaalada Hobart gobolka Tasmania ee dalka Australia. Inta ay jirtana Sarru hooyadiis oo lagu magacaabo Kamla Munshi waxay raadinaysay labadeedii wiil oo kala ah Guddu iyo Sarru. Dhowr toddobaad kadibna markii ay ku guuldareystay raadintooda ayna ka qoostay inay guriga ku soo noqdaan ayaa booliisku waxay hooyada ku wargeliyeen in Guddu meydkiisa laga helay wadada tareenka uuna dilay tareen maraya meel u dhow boosteejada magaalada Burhanpur. Intaa kadib waxay hooyadii tamarteeda oo dhan gelisay raadinta Sarru iyadoo u safartay meelo kala duwan, raacdayna tareeno fara badan. Ugu dambeyn Sarru waxaa korsaday qoys Australian ah deganna magaalada Hobart. Qoyskan kaliya ma aysan korin Sarru, sidoo kale waxay korsadeen wiil kale oo Hindi ah laguna magacaabo Mantosh. Sarru waxa uu bartay luqadda Ingiriiska isla markiina wuxuu ilaaway luqadiisa Hindiga ahayd. Magaca saxda ee Sarru waa Sheeru, waxaana magacan si qaldan ugu dhawaaqi jiray qoyskii soo korsaday. Sidaasna ayaa u baxday magaca Sarru. Wuxuuna Sarru bartay ganacsiga culumta hoteelada, wuxuuna ka baxay iskuul ku yaala magaalada Canberra ee dalka Australia. Markii uu weynaadayna waqtigiisa inta uu badan wuxuu galiyay inuu ogaado magaaladii uu ka soo jeeday. Wuxuuna magaaladiisa ka dhex baaray sawirada uu dagax gacmeedku qaado ee laga helo Google Earth-ga. Isagoo baaraya dhammaan sawirada boosteejooyinka India ayaa si lama filaan ah wuxuu ku arkay boosteejada magaalada Burhanpur ee uu ku dhex lumay markii uu yaray. Wuxuuna xasuusnay dhammaan astaamaha boosteejada sida haanta dheer ee ku agtaalay boosteejada. Sarru waxa uu in yar ka xasuustay magaca boosteejadan sida inay ka bilaabanayso xarafka ba oo ah magaca Burhanpur. Intii lagu guda jiray sanadii 2011 ayuu habeenada ka mid ah Google Earth ka dhex arkay boosteejo tareen oo dhowr mayl u jirta boosteejada Burhanpur. Boosteejadan waxay aad ugu dhaweyd magaaladii uu ka soo jeeday, wuxuuna sii tixraacay sawirada dayax-gacmeedka ee qadka tareenka ilaa uu ka arko magaaladii uu ka soo jeeday ee Qandaba. Sarru ma uusan soo xasuusan magaca magaaladiisa, laakiin waxa uu xasuustay astaamaha magaaladu ay ka koobneed oo la garan og yahay, sida jidadka tareenka oo uu ku ciyaari jiray iyo buurta dhagaxaanta ay hooyadiis ka shaqayn jirtay. Wuxuuna sii tixraacay sawiradii ilaa uu ka arko hoygii ay ku noolaayeen.
intii uu tixraaca ku jiray Sarruur wuxuu ku biiray Facebook group oo laga lahay magaalada Qandawa wuxuuna dadkii group ku jiray weydiiyay in sawirada dayax-gacmeedka qaaday ay tahay magaalada Qandawa waxayna u xaqiijiyeen in sawirada iyo magaaladuba isleeyihiin sanadii 2012 Sarruur waxa uu safray magaalada Qandawa oo ku taala dalka India wuxuuna dadkii deegaanka weydiiyay inay garanayaan qoys wiilkooda ka lumay 25 sano ka hor wuxuuna tusiyay sawir isagoo carruur ah sawiradan waxay la socdeen dukumiintiyada qoyskii lagu wareejiyay isaga dadkii deegaanka ayaa durba u tilmaamay hooyadiis wuxuuna la midoobay hooyadiisa walaashiisa Shakiila iyo walaalkiisa nool oo lagu magacaabo Kallu oo hadda ah macallin iskuul iyo maamulo warshad qoysku markii ay waayeen Sarruur iyo Guddu hooyada waxay labadii carruur kale u dirtay iskuul si ay wax u bartaan dib u midoobida qoyskan waxa si weyn uga hadlay warbaahinta India iyo tan caalamkaba Sarruur wuxuu hadda ku sii nool yahay magaalada Hobart isaga iyo qoyskiisa waxay awoodaan inay si joogto ah u wada xiriiraan wuxuuna qoyskiisa u iibiyay guri hooyadiisna uma baahna inay dhagaxaanta ka shaqeyso si ay qoyska u masruufto Sarruur waxa uu mar walba soo booqdaa Hindiya wuxuuna dalka yimid wax ka badan 100 jeer wuxuuna sidoo kale u kala safray magaalooyinka Kolkata iyo Mumbai si uu dib ugu xasuusto safarkiisii rubuc qarni ka hor sanadii 2013 Sarruur waxa uu daabacay buug uu isagu qoray oo lagu magacaabo A Long Way Home isagoona buugan uga hadlay dhibaatadii uu soo maray markii uu sano jiray korsadii ay soo korsadeen qoyskan Australiyaanka ah iraadintii ay raadinayeen qoyskiisa Hindida ah oo uu ka dhashay sanadii 2016 waxaa qisada Sarruur laga sameeyay filim lagu magacaabo Lion filimkan waxaa director ka ah Garth Davis jilaayaasha filimkan waxaa ka mid ah Dave Battle Nicole Kidman iyo Rooney Mara wuxuuna filimkan ka soo muuqday qiimeynta Oscar Baska loo yaqaan ee 2016 lagu qabtay bandhig faneedka caalamiga ee Toronto inkastoo ugu dambeyntii aan ku guuleysan kaalmo ugu horeeyay haddana wuxuu ka mid noqday filmaantii uu fiicneed sanadii 2016 filimkan Sarruur oo weyn waxaa matalaya jilaaga lagu magacaabo Dave Battle isagoo yarna waxaa matalaya wiilka yar ee lagu magacaabo Sunny Bawar wuxuuna wiilkan yar ku guuleystay abaalmarinta aktarada cusub kuwada ugu fiican intaas ayaynu ku soo ogeynaa qisada Sarruur haddii aad video ka shafadlan like saar haddii aadan weli nagu soo biirin fadlan taaba calaamadda subscribe-ka hana hilmaamin inaad gambaleel ka furto